waxay soo galeen magaaladii. Waa laba gabareeya. Dabadeedna markii ay magaalada soo galeenba wuxuu ka dhuftay telefoonkii mid tuuga oo wataa mootobajaaj. Kadib ninkii oo yaaban oo ku maqan tuugii la xararay moobilka ayay tii gabadha ay soo daba istaagtay. dabadeedna isagoo telefoon ku hadlaya ayay xaggan eegaysa waxay arkaysaa 4 ciyaal xaafada oo meel ku sheekaysanaya ciyaalka xaafadda. mid baa dhegta dabadeeda ku dhufatay hal rifaaxa ay tiri waa kan kii iga qaatay moobilka aanay garanayn. kiina ciyaal xaafadkii oo dhan buu soo kaxaystay. baanga iyo dhagax iyo budh ayaa lasoo wada qaatay. waxay war naagtan madowga aanu garaacno. ninkii oon warbixinin baa arkay koox dhan oo kusoo rawaxday. lafihiisu u cararay cawralay cago iyo badbaadiya way bixi iyaguna waa soo daba yaaceen. ciyaal xaafad buu ahaaye meel yar buu uga laabo gaari buu ku gabaday si uu uga badbaado nimankan masaarida ah ee baangayaasha sitaan. ciyaal xaafadkiina halkan ay ka raadinay war xaggee ka dhaceen labadii madmadooba. askaxoodaanu maanta qaadaynaa annagii bay dharbaaxan ugu dhufatay naagta madoobe. habal bahasha adigu eeg. dabadeedna meel buu ka yara qaawsayaayo iyadana waxay leedahay war nimankii meeshaba ka tegeen warkaaba ma hayso. gabadhii dhagaa xidhayd habal aamus buu yidhi bad baad nagelisa bad kale aan nagelinay. markiiba waxaa soo dul istaagay kaambihii ciyaal xaafadka watay. markuu arkay siday u naxsan yihiin ee naftuba ka tegi gaadhay naxin daraaddeed ayuu isiri miskadiisa waxaana uu ka naxayba. kii la socday baa war meesha waxaad ka eegaysaa miyaad ku haysaa. qoladii baa fadhida suu war waxa ma joogaan naga mariya. neef kulul baa ka soo booday. ilaahii badbaadiye adigaa mahad leh. meeshii markay cabaar ka soo socdeen bay tiri war waan haraadanay. gabadhii ciyaala gobolka ahayd ariya ciyaala gobol soo kaxaysan jiray buu yidhi. dabadeedna wuxuu galay subarmarket subi uga soo iibiyo. iyadoona gabadh bay aragtay miday South Sudan ku taqaanay u eg. say tiri waa la taas miyaanan yakuusa ahayn. waa yakuusa laftigeedii waabay ku soo carartay. dabadeedna markaasay aragtay tiyo bas fuulaysa. bas cumbuligii baabay ka daba gashay ila waa asqee way asqaysantee meelay u socotay meelay ku socotaba garan mayso. hadda nin bibiya ka sugaysa oo taa baskii iska dhex gashay. ninkii baa soo baxay wuxuu isleeyahay waa qofkii kula socotay sawaabneed biyaha u siitay maxay ahayd. waryaa ciyaala gobol soo kaxaysan jiray. ciyaala tuule markaad hargeysa soo geliso waa sidan oo kale. ninkii dhib baa haysata dhowal buu ka eegayaa. wuxuu taagan yahay waryaa soo kaxaysan jiray ciyaala gobol ee muqdisho keeni jiray ama ciyaala tuuleed soo kaxay hargeysa keeni jiray. gabadhii ee baska ka soo daba fuushay ayuu markiiba ku bilowday naya kuusta miyaanad ahayn. miyihii bay tiri miyaad garanaysaa. hawaanku garanaya aniga isu ka yeelyeelini lafaaga cadad baan garanay maad dafiraysaa. saytina waxaad ka hadlaysa garan waaya. saytiro carabi baabad ku hadlaysaaye xataa qaabkaad u hadli jirtay waad bedeshay. walle waxa ilbaxay ma tamar yara. waxay tiri naanu kuma garanayee indhabeel baa tahay igu soo afgoyn. ninkiina bartii buu ka raadinaya xaafadihii iyo meeshii subarmarketkii ku yaallay. waxay tiri naawataynu jaarka inaynu suda naqaanee miyaad xasuusan weyday imika bale xasuuso. ama lacag baad rabtaa bay tiri imika hadalkaaga batee. ma doonina bay tiri lacagtaada nagala noqo qof lacag baan kala baahan ayaan kula ekay. kuwii baska saaraa baa war waxaan idin qaylo badan arrimihii. waxay tiri war dira war ii jooji bahalka baskan waa hadal batee halkaa kaga tegay. bas cumbuligii yar ay loo joojiyey. gabadhii oo yaaban baa istiri baskii ka deg. tii indhabeelka ahayd baa idin ka soo daba degtay. war iyaa ilaahay iyo ummadiisa yaqaana weli hadalkii bay ku wadaa. hayee heblaayo naya kuusta maxay kaa daba dhigay. anigu naya kuusii cali toona ma aqaana adeer iga daba hadh. say tiri allah hayaay adigoo maanta ismacaaninayoo iska dhigii ijabtiyaan madow. naaradoo nagat annaga wax la doorsay dad muudnay oo taluu qaadanay. nagat bay tiri way iskaga lugays. ninkii isagu dhinac buu magaalada ka raadinayaa waa yaaban yahay. way ku luntay. telefoonu ka garaacana ma sidato oo maantay magaalada soo gashay iyadoo South Sudan ka timi ayay qaahiro soo gasho dee caasimad weyna. markiiba waxay iska gashay supermarket. waa fiican tahay bay tiro xigii bay tiro wuxuu yidhi adeer ma aqaana wax xigii dukaanka dhex galo rasiidkaasaan kuu jaraya waxaad doonaysa soo qaado. carabi iyo ingiriis bay kala hadlayna isma fahmayaan. dhex qaad buu ku yidhi dawta dukaankii maxaad iga wareegaysaa. halkan ayaa hararta war meeshu noocyo badana talo carabta waxaanay ku caddaata. waa tajibis markiiba furtay. baalku qadhaadha aniga taa wax halkaa u dhig isagaa leh maxaa kaa gala adigoo lacag baa kaaga baxaysa. waata haddana mid kala furatay. ninka carabka weeyaa biyuuxse war waxay indhabeelkan ku soo gala tiina waa tafurtee tiri
tanna waxbaa ka dhadhamay siifad waa kidhi halla maxaa kaasiya ma la hadlaysaaba midh saddexaad bay furtay way dhadhamiso waata tidhi kow dhanaana dhagaagu jabay masuba gorayaa waata iska dhigtay ninkii waa yaabay haddii jibistanaad uu furfuraysa dhigaysa maxaad uga jeedaa hanoo kaadi bay tiro waa ta dhadhamisay walaan dhadhamiyey sugtan wallaahi tanaa la yara qaati inkastoo aanay macaaniin hanaga dhig yadana waa isagaa leema lacag baa lagu qoraya iska dhig mid kale firtay haddana way tiri bal tanna han dhadhamiyo inay wixii dhaanto dhadhami wallaahi tan waxoogaa yara dhaanta tan iska qaado wixii kale waxba kaama gelin oo lacag baa lagu qoraya xabadaada iska qaado bal xabaddaa i xisaabi cabdow yaa maxaad uga jeedaa i xisaabi naga iibsaa ku xabaddan talunbaa i dhadhantay wixii kala dhawada qanaar iyo bilaa dhadhan bay ahayn adeer wax ma kuu sheegaa wax alla waxaad furtay oo dhan soo qaaday buu soo qaado lacagta lagu xisaabinayaa anigu talo quraantaan dee qaadanaya kuwan kale ma doonayo waxba kama jiraan buu adeer dukaanka dib ugu noqo waxaad jibis furtay oo dhan soo qaado meesha mahareertaabaa leh sug buu anaa kuu soo ururinaya u soo urur lafeedii oo dhan 5 timir jibiskii ee furtay oo miiskuu soo saaray wuxuu adeer kuwa naada iskale lacagta ku dar oo iska bixi wuxuu waa 550 lacagta waa diidamiyaa wallaahi kaasan madax kaaga jafaya wuu adigii habartaaba markii weyn waxay tiri waa niyo cadho dhowaa reer magaal baan ku moodayay waa Suudaan baan kema batrool leh lacagtuna waxba nalama aha anayba lacag ku dhibiyo shaydaanka iska naar ay guddiin anaga yaro lacagay aniga bal kun kaan naga qabo Suudaaniiska indhabeel baa tahay ninkiina waa ka halkan meeraysanaya oo yaabay ninkii baa yidhi war waxay qofkan ka qabsaneen waxba garanay soo gasho waa mid buu garaacay madowga hariyahay war nin mid madowga indhabeel ay soo gashay balaa iga soo gaadh joog buu naaya duuba ninkii baa soo galay war Mustafa maxaa dhacay shir waa nin qofkan indhabeelkaaba intay soo gashay waxaan garan waayay dhiibtay lacag baa mise waa ruwaayad mar waxaan afkaranayo qofkaniga afkareen indhabeelka meel ka tabi garan maynay qofkan lagu soo habaaray maxaa dhacay allah waa nin af Soomaali ku hadlay bay tiri war maanta baynu isfahmaynaa ninkan wii diri gaadha bal soo dhow waxay tiri waa ninkan muxuu ku haystaa imika xabad jibisaan isriibso magaalada dukaanka wixii yaallay buu kule raro ku kaa saxayay buu yidhi waddankan waxaan kama shaqeeyaan meesha dalkaagii maaye meeshan qaahiraa la yidhahdaa lacagta iska bix lacagtana dee waan siiyey lacag bay tiri kun baaban u dhiibi wuxuu dhaa meesha in jabti baa la dhaa kama shaqeysa kunka suudaaniiskiiye i jabti baa la dhaa gini baa ka shaqeeya giniga sii wuxuu dhaa iskaba dhaaf anaa ka bixinaya war kaama yeelaya buu yidhi haddii lacagta diiday inay bixiso iska daana qanasaan uga jareye ana arburi waa dhabeele anaa imise wuxuu shulmee kaa qaadi maayo ana arga qaado waa imisa markaasuu yidhi war waa 550 kaase keen suu wallaahi haddaad maanta lacagta ka bixin waayidhi halkaasaa looga tegi lahaa miid ahaan ninkii baabay kusoo dhaaqaseen ku leedahay waar tag baa leexnee waalanay maanigeed maanta ii dili gaadhe haddaa ninkii kugu yeedhi meydkaagaa ka kace kii madoobaabaa naaba shaydaanka iska naar hawshu waynu dhamayne adii qofkan maxayd waalanay waa bal iska dulqaada Mustafa waxbaa kugu dhacay maante uu soo baxday dibadday ka eegaysaa meherad kala geli doontaa kii baa ka dabayay maxaad raadinaysaa xaggeed ka timi buu ku yidhi say tiri tolom xaggan bari baan ka imse xaggan galbeed dhinacan ka waa garan maa waan isqaysanaya suu yidhi cajaib ariyaane anigii baa meelaad ka timi garan weysaa waxay dadkan dhagaa xidhanay magaalooyinka waxaan dadkii magaalada ku bixisay way dadkani waa ka yidhi naade waxaanad ka hadlaysaan oo garan maaye aadhe iska aamuso ninkii haddana mar labaad ku qayliso ninkii baa yidhi haddee lacagtii waan ku siiyay maxaad ka daba socota qofka dumar iskaga tag ninkaagu Facebook ma leeyahay lambar ma ka haysa lambar ma ana istari tuulaane bal ciwaanka Facebooka ninkaaga sheegan fariin u dire markii uu fariin buu diray qofkan dhabeelka magaalada ka soo gaadh waxay sheegtay streetkii doqon ma waaye wuxuu bartalo kugu meelay meesha ka dhaqaaqin saacad kadib uu ninkii yimi maxaa kugu dhacay waar waxay ugu dhacay waxay iga dar ninka xarafka bay diri gaadhay ninka xarafka maanta hadaan maanta nin madow iga qaban taydi bay noqon lahayd ninkana iga soo gaadho walaal maxaa lahayd oo say wuxuu jiraano har qofkan dhabeelkeed magaalada kusoo dhexdiisay cid fahmi maayaan anaga ninka kala gar qaadnay iyada ka garta reed ninkoo qalad kala hayde ida la hadal meesha ka hayso qofkan xageed ka qofkan iyo sida shaydaanka iska naaro meesha waa magaalo la qabso dalkan Kenya ma waa dal kale ninkan waa nin wanaagsan afna mar saaxiibo magacayga Cabdullaahi Raagal adigana maxaa lagu dhahaa tiiba deetana ilaa gagafka indhabeelkaas qori bay qaado ninkii madaxa bajisay halkaas sheekada ku dhamaatay